war degdeg ah qaar ka mid ah ciidamada Jubbaland oo xalay ka ambabaxay magaalada Kismaayo doomana ka raacay ayay gacanta ku dhigeen ciidankii xoogga dalka iyo kuwii harab cad ee la geeyay Raaskambooni haddaba sidee bay u dhaceen see suurtagal ku noqotay in ciidamadan lagu qabto waxaan rabaa inaan kula wadaago war xasaasi ah oo iminka iga soo gaaray magaalada Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose soo dhawaada saaxiibayaal idinkuna muuqaalkana leegno saaro oo si shargareey wararka hadda iga soo gaaraya magaalada Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ii xaqiijinaya in qaar ka mid ah ciidamada Jubbaland oo xalay ka ambabaxay magaalada Kismaayo doomana looga qaaday in ay gacanta ku dhigeen ciidankii xoogga dalka iyo kuwii haram cad ee booliiska ahaa ee ku sugnaa Raaskambooni ee shalay halkaasi la geeyay laakiin marka hore sidee bay u dhaceen afar doon ayaa la sheegay xalay in maamulka Jubbaland uu ka diray magaalada Kismaayo sida kaliya ee marka aad Kismaayo ku bixi karto aad Raaskambooni ku tii kartana waa inaad doon raacdaa afar doon oo ciidamo hubaysan ay saaran yihiin ayaa laga diray magaalada Kismaayo haddaba meel 5 kiiloomitir u jirta Raaskambooni iyaga oo maraya oo doomihii ka degaya oo halkaas raba inay uga degaan kadibna intaas ay lug ku tagaan waxa ogaaday qaar ka mid ah ciidamadii hore ugu sugnaa magaalada Raaskambooni ee taliya fanax hogaaminaya markii ay ogaadeen waxa ay ku wargeliyeen markiiba ciidanka xoogga dalka iyo kuwii haram cad ee shalay magaaladaasi la geeyay kadibna waxa la sheegay in doomahaasi loo adeegsaday weerar madaafiic ah oo lala dhacay isla markaana halkaasi muddo ka badan 15 daqiiqo ay madaafiic ku hoobanaysa kadibna ciidankii Jubbaland ee laga diray Kismaayo waxay noqdeen wax carara iyo kuwa naftooda la baxsada waxa jira haddaba qaar ka mid ah ciidamadaasi oo meel ay ka baxaan oo jiha ah ay aadaan waayay kadibna go'aansaday inay halkoodii sii joogaan maanta haddaba haraad iyo gaajo badan kadib iyo saacado badan oo ay dhulka ku jireen hoodka ah waxay go'aansadeen inay isku soo dhiibaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa booliiska ah ee halkaasi la geeyay waxa la sheegay in ilaa 65 askari inay gaarayaan ciidamada halkaas ku sugan saaka 40 askari ayaa isu soo dhiibtay halka goor dhaweedna 25 kale ay soo dhiibeen 65taasi askari waxay ku jiraan iminka gacanta ciidamada xoogga dalka iyo kuwa booliiska ah ku sugan Raaskambooni saraakiil ka tirsan ciidamada halkaas ku sugan oo aan la hadlay ayaa xaqiijiyay inay goor dhow warbaahinta u soo bandhigi doonaan muuqaalada iyo sawirada askarta Jubbaland ee isu soo dhiibay xaaladdu waxay tahay iminka mid kacsan iyadoo lagu soo waramaya inay jiraan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeedo oo Jubbaland iyo dawladda federaalku ay ka wadaan deegaanka Raaskambooni iyo guud ahaan gobolka Jubbada Hoose wixii wararkaas ka soo kordho mar walba iyo daqiiqad kasta halkan ay idin kula soo wadaagaya idinkuna isha ku haya bogeygan Axmed Saciid Axmed aad u mahadsantiin saaxiibayaal